magaalada maanta raayis jiiraal jeegaab iyo nidaamad iyo soonaan baran yan hanin dirma lama bilood ma lahayn ninga galay lamadii bilood kadib ma ilaalay baawrka inta suri ma baar manaato mishan bir baawrki baaraw sidaan amal sameeyo shaab ku biiri kadib waldiri marka aniga sameeyay toddobadan eedeysane oo halis ku ahaa xasiloonida iyo badqabka shacabka ayaa isugu jira dhagarayaal dadka gaadi jiray bambatuur jabhad iyo qaar ahaa waxay ugu yeeraan xisbada Ilyas Cabdiraxmaan Cali Hudow oo qawaariista ku biiray sanadkii 2024 kadib tashkiilinta Sheekh Madkay kol horena ay ku wada xamaalin jireen Faryaamanimo ayaa deegaanka Koofi Guduud Shabeelow ee gobolka Bay lagu baray habka tuurista bamgacmeedka tababar kadib ayaana loo bilaabay mushaar dhan $50 bil walba si uu qayb uga noqdo daadinta dhiigga shacabka waqtiyo kala duwan oo 2 jeer ah ayuu bamgacmeed ku kala tuuray saldhigyo booliiska Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo mana jirto cid waxyeelo ay ka soo gaartay waxaana hay'adaha ammaanka ay qabteen 24kii bishii 6aad ee sanadkan waana isla waqtigii uu tuuray bamgacmeedkii labaad aan meerogaladi nangoonisi shaqeynay ko faraamis laayay tashkiili asaggalay maxaa ka shaqeynaysa marka hore maxaa ka shaqeynaysa faraamo aye guriyada dhiso inta ka shaqeyn jirtay inta guriga ka dhis jirtay haafo oo Baydhabo Baydhabo kadib yaa kugu tashkiili nangoonisi shaqeynay faraamis laayay oo ashaab nagday magaciisa madkay madkay ma fadhiyaan madkay ka telefoon indiri ma yaray Ilyas hadii Baydhabo dhogday laakiin mushakana niilashaqeeyo ku fadaanay yari anina yari marka maalin Jumaayo ma yaray gufguus shoolanba gufguus shoolo taseedi maalin Jumaato bunka gamaga sidin turo ay milaag barade maalin shirku marka lamamin gudib telefoon aan kala indiri oo madkay ka yiri aan ka saana telefoon indiri meeray ras milol kinda gaado yiri bamgacmeed kinda gaado yiri mirisindike waadi wafad burjumaa islaamiinka sayti aruntum kureeyto ku tuuri intee wax runtas magaceed arunto suuqbalka haddana sidaabi gudib tan kale gaaday taasna milaan dikay shirib gaami ay arunto nurugu eemumu adiga ku barashada loo kala furo bambada dadoo barooyin ku gudish walaw lagu soo bare ma hal maalin bis jimaal ruugan hal maalin wax lagu bare marka maxay ku siinayaan mushaar meeqa lacag lagu siinay ku dheen bilo bes ugu aaday $50 albil $50 ka qaad bambada yaa ku keenay yaa ku dhiibay madbana min dib meelin kale waadaanin inta la dhigaa wadada nanga oo matay ka hiriiriyay waay oon horan aragnay soo jiib telefoon lees kala la news baal meesal laakiin dadkii meelis ugu aaday leeyahay meel waadaay inta lagu dhigo ka qaad wadada tee oo geese wadada tan kood buljumaal ay nigi xaafada buljumaal ron lagu dhigay ka qaad tan la maadna meel ay nigi xaafadan shirib gaami isla markii ma lagu qabto turta markii ma bilki dib ma lagu qabto bilki dib la eegooday Ibrahim Isaaq Aadan Ibrahim afgarashana u lahaa Camaar iyo Mucaad Idris Aadan Ibrahim waa ilma adeer horay uga tirsanaa qaybta jabhadaha qawaariista kana qayb qaatay dagaalo kala duwan mar dambe ayaase loo soo bedelay Baydhabo si ay kooxda ugu fuliyaan dilalka gaadmada ah balse shartooda waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay Camaar isagoo ku sugan goob uu ku iibinayay kabo si aan looga shakin baarista Nisa ayuuna ku sheegay xogta iyo meesha uu ku sugan yahay Mucaad oo intii ay wadada ku soo jireen ka dhacay gaarigii ay saarnaayeen kana jabay lugta bulufulay liishani no jabadaha qolna liingshan ya bulufulay liishan markana bulufulay coin markaas mada shaqada amniyaadka madaaseen nin sheeg tababaro meel raayis amniyaad shambilood meel gaadan iyo meel raayis shambilood maxaa idin bara ina baraayna bastoolad ibamba imiina iyo aqeeda maxay aqeeda mana soo isla muslimkiyo meel raayis waajibaadkii meel raayis keentay yana baraay kobaada si inuu roogni marko maalmo kumid ah aniyo mu'aatan isla jar ya Baydhabo hanin dirma soo nahambarna magaalada meel raayis jiiraal jeegaab iyo nidaamad iyo soo nahambaran yana hanin dirma ono madun bulfulay baar aasiya kran aasiga oo fuun dhata ka jarni usa meel aasiga ka jabima yaa kaas magaciis mu'aad aasiga ka dhacay aasiga bagaalji yaa ka dhiisaasa ka jabima markii madun unto bun koyn magaalada dhatiye ya ka degni isbitaalka madun meel raayis lanki yabalka kawo yaji بعد اللطيفة ولا لهندوبي بعدين هافد جي أو ميل رايس كتال توفيق أو أبودي لا تجي فبعد ما دوم ميل راي مقالد أني ديبان كناقدي أنينا
miiska yaro kobo saaradi ya gabaad ka dhigay saana liin faan maana lahayn qoban maalmo kamid ah oo meel raayis bil iyo nees sagaal hamin aan urug sagaal geed aan urug oo hulina sadeen wada miiskina gadow aan miiska hambay wajidka ka jar meel raayis miiska ka nagaday ido ariitan la tolaalan la tanjeed yo ko anis maskaras kala banay ciidamaas lahayn soonto koy aanon tanjeed iskoor koynay oo sadaa ciidamada nibisada lay ku reeji inta koy wali waraysadii sadeen sheegma asaliyaas miiska afrate lacagta ku fartiya ku sii koo agtay oo aaday la dhalay ma ka shaqeeyaa gaarga meel raayis ka gaalkay ka shaqeeya arawi ka shaqeeya ma ogaa inaad shabaabta markii aanan bayg dib adheegayso laakiin intaan bay dhow koy madaan sheegay la dheegayso asi shabaab miya ma magaalada miis ka furato maxaa qabato shaqo ah magaalada may qodayn shaqo wiino saase anagoo maablere jirooyinki habareyn leer bese ya fafiiray ma iyo miilo antooya magaalada kala baraysa kaliya magaalada habaroy bil meel raay lama bilood ya jaanasana seema magaalada habaroy jiiriyaal iyo nidaamad iyo gaabsha habaroy ka baad hanagda indaasa walaayin hubkin la singiyo indaasa nagadaasana tal toosan galaasan wax barasha ku jirtaa macna wal barasho la jireen shaqaan uga wadan jirta tek soo shaqeys intaan ku tababarto marka hore sarag li tababar ku bay tababarka markii uu dhamaasin ku baad jilib hoostiye oo duleed aadi leeron ji la raayis masheerkan mehay $30 meelo noo roog marka hamin ya furgal arbishada galima intaas ku baad inta leeyahay wareejimo kal galan hol suuban adiga iyo mucaad taas ka soo raacay taas ku baratay marka hore mustaqaanan ilmadeerina koolaas karani meelatin oo shaab ku beerni illa anteerka si jiran jabada wada hajirtay marka hore markuu jabay ya daawad ka bixi meel raayis isbitaalka markeen jey ku baad awsheen jeyma u dhibtay lugta maxaa ka jabay wiibo oo gabal harag oo nas qobaday lama qof antana hada qobaday inta lan qobaday anoo boodo yaa ku jabino harag oo wiibo jiinshil ku boodo ku jabino marka bootinta ku jabtay bootinta ku jabay ما تقانا إبراهيم مش تقانا وتقانا عايز كتير المرة راسكنا أنت مركا إيماني مسلم عنه أسلمان مش صار عنه أسرع عن لكن ميلوس الشجاعي وأنا ميلان شجاعي اسمه ما أيه بس بين شجاعي ميلان سلطان ما يبغى بلوينة سلطان نيس كوماري بقول سلطان بلوينة سنة شجاعي بني مركز شجاعي بني ميلان سامي يبغى شجاعي سنة كوباد ما يبغى هذه أصيغ وأصل بيدو أصل إماتين سما أسلمان محاو سعتين تسعين ما شجاعي بني مركز شجاعي ما يبغى هذه أنا شجاعي سلام بني ما حكش غيزين ما يبغى هذه ما يبغى بيرك شجاعي أنا بيرك شجاعي يسون بيرك أنا تبغى قاعد يرك هاي أنا سليمان كوف فكرة بني رجال كان كره يسون بيرك بس الله قاعد يرك هاي أنت هل كان مركب بيدو إيمان إنسان ما حكى بالله سنة هنا كشغي إنسان ما والله أنت مركب معنا ما يبغى كبرنا سنة من الشغل أنا هقول لك ما يبغى هو أنا جاي مركب وسباق هذا أنت بنت ميروني ما يبغى سباق هذا ما يبغى هو أنت كوي ما يبغى بانس ضايله أصيغ شباب مية أصيغ محو هاي أول شباب هاي نو هذا جنه مايا هذا مركب هو راح تمرين مايا ويلي منقون abuukar cumar salaad oo kooxda dhexdeeda looga yaqaanay suldaan ayaa caashaqay muuqaallo qawaariijta ay ku baahisay aaladda tigtooga kadibna waxaa lagu tashkiiliyey whatsapp group taas ayaana sabab u ah inuu gala safkooda isagoo safar ka bilowday muqdisho kuna sii maray baydhabo ku tegey deegaanka buushmadiina oo shabeellaha hoose ka tirsan balse waxa uu ku haray tijaabada caafimaad maadaama uu ka xanuunsanayey qoorta cara uu ka qaaday in la faquuqay darteed ayuu baydhabo dib ugu laabtay ciidamada ammaanka oo ka warhayay ayaana qabtay 30 juun ee sanadkan aadan xasan macalin markar xamra ka imaaday adi xamra ka timid bishii lixaad oo nafarteeda ka soo baxay haye barsmiciina saxda afgooy kadib maanta shanaad ka soo baxay baydhabo baabuur soo raacay jamiica ugu day jamiica iska dhig kadib albishir wax saxday kadib maanta soo xogtadane oo 18 baarka lagu waday baarka lagu waday baarka lagu saxday to saalkan ku jeelikeen ku jilix ma amdado man ajooy kadib ma soo baxdan barshmiina likeen بشمين شمال أنا جو dadkii oo la joogeen waa la waday oo 3 qofood 3 qofood saal fadayeen 9 qofood ani ku jiro 6 qofood caafimaad ahayn 2 qofna jabada soo mareen aniga marka dana laga leeyahay joogal aniga marka qortaan joog oo barka 6 bilood oo daawo qaatay marka waxa isku milina marka xisbi iyo sagawaad wax la raansi day aniga marka hore xanaaqdo aadi marka dama ufsa jiro waalid xaqiisa dhankiisa oo wiil wala kilometer oo ku daray aka xanaaqsanay walaalkii ila shay iween الله مر على القدرة لو كل أزدحدي باصور سمعت بحتان ري أنت عادي بدر يورو بري السجل دري
أصير لعبت وقت ساري ومالي ملاوي صومرة لعبت لا قاعد يحكون يدعي لا سأل كامل هذا لو كل عشان تسوي لو كل عشان هذا يقول دري هذا الجيري أسجوا واي وزبين سيقلاي أنا مركا عاد ده مركا كارك دل بيقول سوق قصة روترا ويحفظ الجو أساسي مركا أنا مركا ماشي تجيني مركز كبير أو اللي غيره مركا راح فكروا هنا مكفاد ده أدنى دبك زبدنا هذا أذكر نقاش الأذكر دي نقطتين سورة لا قدر لا سورة لا قدرنا وطل بعد أذكر هذا سوء لنا مركا ده مركا شاب وصول لا قدر مركا جبت نقطة سوى بحث ده دور جبت وعلى صورهم كرده مركا حزبي مركا شغال يحكي لي شغال هذا مجال قدام صديق كرتا ده ميل سليو كوديان واحد كوديان جكبتي كوديان تران مركا جبت صورهم كرتا ده تي مركا دافي ده هذا مش جوج أفر بلو عمل قدر كرتا وضد كبار أفر بلو يقاد صون كي مالن وكعيدستين عيد وعيدين أفر بلو يقاد مركا دوي بحين أنا مركا هلا ما ينسعد ما أنت الحاد شن ما شان كبحين ما أنت الحاد جوي ما أنت أصبح وبش ضنك أو ضمان سو وبش ضاد بالأرض أصبحي كتب بيدو سو هذه مش مية أصولي ضودر صراع مابور أو بيدو هذا بيدو مركا كان دقاد كمرة كم كويل مرة بوفس اللي ده حنا قولكي اللي هو دري كحنا سنة انتو بوفس كوها بوفس توكاها دبيت اللي روي ولا شيء جرب شو تمشي زري ولا عشان تجوكتا جرب اجوكتا مركا ماشي زري مركا ماشي كان لو مركا قصي هذا مركا كان تبقى كوبس يدير حافظ دقنا مسمي أجري ساسمي سان عمل أزمي وسمي شاب وكبيري كده والدري مركا أنا ساسمي أزداي كده وأشوف فلاني الذكار سوق تو ما لوجس كنت تقرينين دحيل كم بحث مركز أدو تين مركز نقول جبهة اللي كيوي حزبي حلو إنه مقال يقدر يقدر الجنوب ولا سدير الجي ما لك صبح كرما داي مركز اسكنوا قاده سيدي صبح markii oo meesha aad tagteen maxay ku bareen 300 qof تعب أقول يقول تسافر في مركز كوا على صبر عليه بس محل براي ديار لو دومنا بس قدود سحنا ديار درون تسلو دومنا مركز دوق الموضوع انتصار الله قدود كلو دومنا قدود كلو دومنا مركز كلنا اجمع لها مساعد كلمانا مساعد مركز ارودنا كي كتب كانوا اسم مسلم فيه قران الورثه انا قران قرأتنا وصداه كان حسب مسلم وانت في عرسي كتب تربيه السلام أنا مر كتاب ليستي شتى اسمه الكتاب قرأتني كتاب لي مثلا وصداه ما dadka kan waldiri barada maktab wal kana jooga Allah dadkana ku tarsamay adiga marka baydhabo ma lagu soo diray ma xamar oo socday baydhabo dulmar loo kaay see lagu ogolaaday inaad soo baxdo marka mushmiina waa soo xirsiida soo dhuuntay marka salaad u kaceen waxaan xanuunsanay marka kaniini ii doonay intuu kaniini ku shaqeeyay kii kale oo dadka qabsad ku shaqeeyay laba nin la joogan bis marka dadka macasaka dad qaadeen ugu siinay laba maal ugu siinay Allah marka ana jaas ka fiirsay soo xirsiida soo dhuuntay caag biyo toosh iyo gaas oo qaad qandhi xays iyo ala xanuunahay marka gooy marka dhaxantii qorax soo baxday hal sac gaari gooy waa iska toori kadib caag biyana afar jeer ama isku isticmaalay dhaxal ku toori marka duurka soo baxay magaalada mursad waa caag stoore yaa laga shaqeynaa caag waxay iyo door go'an warka uu qosanay toosh kale soo qaad tooshkana baabuurka ka dijinay aku dhaxin maayo baabuurka inta loo rasay baabuurka dari toosh saas ugu raacay maxaa ka degmada la bushmeena dhahay kadib bushmeena maxaa qabanaysaa leh dukaanka shaqeynaa dhahay oo boqol ku dar qaadanay meeqma lagu maqnaa istixmaal askari oo sheegay in dukaanka shaqeynaa istixmaal maqan boqol ku dar loo bilaaway waalidka waa wada ifrisinta ooyadii wiilka tugay oo dhahay tabliiq ku way oo marka anigu oo tabliiq raajid tabliiq iska weyn war maxaa jid xaafadana suuq xalaa degana waa xamar degana tabliiq tabliiq aku jiro raac jire marka tabliiqina raacay moodis ilaa marka tabliiq ku weeray marka halkan sidaafay marka maxaa laani waxay qaradigal moo lagu gudbinaa marda oo shacab meesha u diyaa oo waxa tariiqaya marda meel hal yarkii marda maxaa dhani waxa qarafayso tartiibka xadees ayaa dhahay marka soo raray toolix maana maqnay saas marka dhahay wala soo inta dhigeen kadib adal yar keen dad inta jooga aadan xasan macalin maxamed oo ganay sumad u ahayd iyo xasan maxamed isaaq oo isna afgarasho u lahaa xaniif ayaa qawaariista ku biiray sanadkii 2019 kadib tashkiilinta dhagarqabayaal lagu kala magacaabo Owraad Nuurow iyo Maxamed Cali Bulle tababarka markii ay dhameysteen ayaana lagu daray jabhad jubbooyinka ku dhuumaaleysanaysay iyagoo mushaar ahaan u qaadan jiray $30 bil walba waxaana xaniif uu markii dambe ka mid noqday qaybta argagixisada ay ugu yeeraan xisbada ee dhibaataysa shacabka ku nool deegaanada ay ku dhuntaan baydhabo ayaana lagu qabtay labadooda maalmo isxigay آسيان نساري ما نقاده ما نجي ملو جرب لكل ما كمسوم اللي ميلان نجي هو ميل نجي قريال كوين نوهابي هو قريال كين نوهابي ميل ما برو ضايا ميل روغني
ashari wala nin galay oo muslim iyo tarbiyatu islaamkan ninka galay markii meel tarbiyatu islaamkan iska galay lama bilowda ma lahayn ninka galay lamadii bilood kadib ma ilaahay baawrka inta suri mahbar manatu mishan bir baawrki baaraw oo telefoonka ninsiyan telefoonada no qaadi ya ma ilaahay hooday aanu sanay fasoy ma yaray lang askari marba digalan galna marba hulgalan galna marba walan sababta laga fasaho ma yareen markii yareen بريال كون روي بريال كون بلروي إلى سلاسبة همينكي ماركن كوي باي قال لي همينكي أبصدي إلى سلاسبة لا رح إلى سلاسبة للرو سلاد اللي أنتو كده سدلا وقاضي ميل الدور عايتي سدلا وقاضي سدلا ميل هندكي سيا وكلهم ذي هذا بيدور ودون كوي هذا بيدور يكون صدره بيدور أني بس يا كلهم ذي هذا بيدور دينا سنتين كوي ما هو شيء وش عيدا كواصل بحسد بيجلس أنا مركز يراي أنا أقولك مرة أنا ديبوك ما بوجانب قرمه لما كنت متضبط عايتي طب تضبط مركز كتم ما حق وجس إلا هذا ما حق وجس بيدو ما كشجعي وكالة بيربيو كشجعي مركون قرنيها قراي هذا خبر اللي يدري أنت مركز الدنيا جاي يندلي أنت مركز كشجعي سداي سرفلي ولا كشجعي سداي ميلا لا قبضي لما ما ليس شباب أصدهايني يا قبضي وأنا لان أوران نورو للي أنا تشكيلي على شعب أنا تشكيلي وجاي نارم baahane al-shabaab bahane ugaaway erayoon oo basaasay taariikhdeeda aan hadda shaqo ka jareeray waa ka bariyo ugaawleeray la gaaban oo kale haytay maduun ardeeda waa kiya bari meeliya mootada ku ray ardeeda siya maduun bush medina ka kooy bush medina oo kooy maduun gobol markas leeyana nijay markas kiya roonay baad walna ogaade oo banana gaade maduun gobol duweeda duurkeena inay taw bari una magorodaano wala amiinleena nagaaday meeliya nijay sid bilood oo kale meeli taw baran baad madun walna gaade madun oo banana gaade gobol oo mayna nijeen saako iyo ada jilib gobol la raw meeliya nijee meeliya madun guriyalna neesiyay aragdeeda guriyalkii oo banana si madun dad hasbi ya laka qori dad naarde jahada laka qoray aan hasbada yalla dhaha dari madun hasbada yalla dari ununa yar yaraan madaas salaada markii la tukudow ya arday dadka ma masaajidkan harooda arajar eebay ma ina ahaan hirin ay aha ooda araan kadib arday wal kala ma gobane siin roogi ardayda ka kaswaayeen taas ku tabay oo baa ku tabay madun qasa dheere ka dhaladay meela aaday awgay degana dago adeerkee askarayo uraayin qasa dheere laaray iyo yar koon ila dhaladay askare meelo roogan aan oo madan ha bahi dhato ku soo way halaw aawa ana namantiya quroray ugaaware oo bisiyanari madun hayo kulli hooba quroorti lankahaysada maleere magaaladaas ku gal ugaay ari dogi usuuna ardeeda nisaayo walaanbe mi imarsiine ardeeda magaaladaas ku gal idka haysata male ugaawlay ari anin isdiibkun i walaanbe ma gorodaan qof yaraay madun hooba dogi bisiyari madun warkiya gaaday kasa dheeri wala roogay siin rooy madan ka baad shaqi weydi garbaarey gobol leeyaseed meeliya shiid i walaan isku kaamaaliday madun hooba similin kaamaaliday madun ka baad ardeeda ha ku tabi baydhooy koy madun awal hor hamaaliya isku kaamaaliday baawrtan i walaan inta triyaalku ha galaan loor i walaan agaadan loorkii la seen gaaday horaadku ku dhuuriyay madun iska suwaay ardeeda madun sa tala ma keenay ugaay saray dameerku i gaarij ee gaaday madun sida bool doorka gaad dameerka i gaarij ee hooba gaaday madun ardeeda gaariga i dameerka isku ka shaqaysay ardeeda aneen wali alkumi anoo ardeeda dameerkii gaariga ka shaqaysaa madun dawladda nisaya gobad goorma ka soo baxay xilligii anaa ku bahaay ad walaad muddo 8 sano oo kale ku wareegtay anaa xasuusmeenhay anuu xisaabtana makasa aadan iyo isku waqti ma ka imaateen aadan ma aas dabahaynay la si wali horeey laakiin walba dhatama ku jaranaan aneen wali yarkii dib kooyle ardeeda anoo dameerkan ka shaqaysaa hadda si dawladda ay gobatay dhab kalena muweedan oo geelay isku amaalado idayleen isku amaalado faday dhibaato kalena muweedan siyala ay gobadeeda aadan xuseen muumin oo aadan hoomey loo yaqaano ayaa isna ka tirsanaa qaybta xisbada oo sanadkii 2013 uu ka qortay deegaanka Raamacadey ee gobolka Bay dhagarqaba lagu magacaabo Ridwaan ayaana ku tashkiiliyay aadan hoomey ayaa sanadkii 2018 isku dhiibay ciidanka dawladda muddo sanad iyo 3 bilood ah ayuuna ku jiray xarunta dhaqan celinta si maskaxdiisa looga dhaqo fikirka guracan
balse markii uu ka soo baxay ayuu dib ugu laabtay saaxiibbadiis duurjoogta ah baydhabo ayaana loo diray si uu u fuliyo dilalka gaadmada ah halkaas ayayna ku qabteen ciidamada ammaanka 24kii bishii 6 ee sanadkan bishii tobnaad kadib haye tababaraan galay tababarkaan dhamaystay jilbaan tagay qori booshka meesha lagu siiyay 4 bilood xisbi meesha ku ahaa markii aan tagayna waxay ahayd la igu tashkiilay inaan baawre ahaa baawreenimadii la isii dhameystiro geerish la geeyo kadib baawr la dhiibo marka balantii la iga baahay xisbaa la iga dhigay 4 bilood markaan soo dhamaystay oo fasax aan soo qaaday waxaa imaaday xawaal barbaara telefoonka dansaday ma balaabanin adin soo dhiibino dawladdu soo dhiibino haye yaa soo dhiib baydhabo xerada marto barqadalti dhinta waa soo maray CID daa maray nabadgud waa soo maray inta waa soo maray kadib maxaa u laabatay dane inaan hornabadayda helo oo aan shaqaysto oo baawreenimadeeda aan ku shaqaysto meel walbana aan maro intaas oo noqday maxay ku dhayn hadana maxay kugu qabteen hadana nabadoonkayga oo meesha jooga la hadlay asiga la xiriiray asigana waaligii meesha la xiriiray marka kadib imaam waa la dhaay waa tagay waaliga la igeeyay waaligi markaas uu dhaay adii meel shabaab joogtaa istaagin adduunkaaga iyo waxa qabso damiina ku joogtaa okay aan dhahay marka aniga mid aan u soo waa intaas dib ugu shaqeeyno maya u shaqeeyeen baawra wada xamar waxa ku shaqeynaa wal barbaar dhahaw baawra si awtay okay gaari darawal ma taadin iskrisbota daraawa had daraawa la ahay baara ka socday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa maxdarkan ku daray natiijada baaristii uu ku sameeyay kiiskan ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii ay ku soo eedeeyeen lana marsiiyo ciqaab adag mudan gudoomiye waxay ku wada eedeysan yihiin inay shabaab ka tirsan yihiin qaybahooda kala duwan ayayna u qaabilsan yihiin waxaan maxkamadda u sharaxnay mid walba eedda uu ku eedeysan yahay iyo doorka kooxda argixisada al-shabaab uu ku leeyahay shabakadan mudan gudoomiye shabakadani waxay fursad u haysteen bacdama ay joogaan dhulka ay dawladda ka taliso inay ku biiraan dawladooda balse waxay door bideen inay ku biiraan kooxda argixisada ee al-shabaab isla markaana ay daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed mudan gudoomiye Ilyas wuxuu u bareeray inuu shabaab ku biiro bambatuur qaybta uu soo qaatay xataa inuu tababar ka qaato marka hadda lagu biirayo laamaha amniga waxaa dooran kartaa inaad ku biirto police ama waxaa dooran kartaa inaad ku biirto military ama asluub sidaas awgeed shabaab markuu ku biirayo wuxuu doortay inuu bambatuur noqdo magaalada Baydhabo ka tagay Baydhabo yaqaan oo u soo tababartay inuu dhiigeeda daadiyo bambooyina loo soo dhiibay wuxuu ku kala tuuray goobo dad shacab ay joogan si uu dhiig u daadiyo marka wuu sameyn karay hadii uu rabo inuu dawladdiisa u shaqeeyo shacabkiisa u shaqeeyo wuu shaqeyn karay laakiin wuxuu door biday inuu dhiigooda daadiyo saas awgeed laba bamba ayuu tuuray ilaahay dad wax kuma gaarsiinin waxaana loo qaadanayaa ficilka adiga aad sameeyso natiijada ka dhalan lahayd ciqaabteeda horta qaadanaysa xeerka la dagaalka argixisada ayaan ku soo eedeynay mudan gudoomiye Ibrahim iyo Mucaad oo ah laba nin oo ilma adeer ah ayagoo dhalinyaro ah ay waxay ka baxeen meeshii ay ku dhasheen iyo deegaankooda waxayna aadeen kooxda argixisada ee al-shabaab waxay u soo qaateen tababar adag waliba waxay ka mid noqdeen jabhad ka dagaalanta afmadow dagaalay soo galeen mar kale haddana bacdama ay yihiin rag dhalinyaro ah waxaa loo soo xushay inay magaaladan Baydhabo ay ka geystaan falal dilal ah ama bambatuur ah ama qaraxyo ah ayaa loo soo doortay waa loo soo tababaray 5 bilood oo bilooyin kale ayaa haddana tababar galay macnaha tababar jabhada ay marka hore haysteen mar kale haddana tababar waxaa la soo siiyey amni ah waxaa loo soo diray baawraacooda la soo siiyey ordaha la yiri Baydhabo soo barta cover sameeysta kadib shaqada leedin dira Mucaad ilaahay dhagartii inta uusan sameeynin ayuu ka hortagay ilaahay lugtaas ayaa uga jabtay dhaawacaas ayaa ku yaalo bilooyinka uu joogay magaaladana muusa baranin dhagarna muusan geysanin ilaahay asagoo ku ekeeyay Ibrahim laakiin jaa shaqadii wuu bilaabay cover uu sameystay miis kabo la soo fadhiistay suuqi laamihi amniga ayaa ka hortagay eedeysanaha nin yaqaano oo aqoon isku lahaayeen oo waliba isku tababar ay ahaayeen isku shaqo ahaayeen laakiin isa soo dhiibay
laamaha amnigu isku soo dhiibay kadibna go'aansaday inuu dhagarqabayaashii uu ka tirsanaan jiray oo laakiin uu ka soo hanuunay uu mid mid u qabto ugaarsado ayaa eedeysanahan aqoonsaday sidaas ayaa lagu soo qabtay kadibna walaalkiis in adeerkiis waa la soo qabtay sidaas ayaa lagu fashiliyay horta shabakadaas eedeysanaha afraad oo ah Abuukar Cumar Salaad waa la yaab wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in xanaaq uu ugu biiray kooxda argixisada ee al-shabaab bacdama ehelkiisa ay u wadi waayeen Yurub buufisa ay galay Yurub ayaa rabay wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in uu awooday inuu ku biiro ciidanka dawladda laakiin wuxuu yiri suul ayaa liiga qaadaya suulkaas liiga qaaday dartiis ma isku dhiibi karo Yurub laakiin waa been ciidan badan oo Yurub jooga waa jiraan waliba ciidanka dawladda ama dawlad hadaa ka tirsan tahay waxa awood u leedahay inaad Yurub tagto shaa ka soo cabtid soo laabatid adoo shabaab ma heli kartaa taas ma heli kartid hadda shabaabku uu ku biiray dartiis wuxuu sheegay inuu arkay nin saaxiibkiis ah oo isku suuq xoolaha ciyaal suuq xoolaha isla ahaayeen shabaab uu ku biiray bacdama ehelkiis ay wadi waayeen kadibna maadaama shabaab ayadoo looga cararayo ayaa ninka la waday ani ninkaasan ku dayanayo yiri laakiin wuxuu soo ogeen hadda naaw hadduu ninkaas magaciisa sheego Interpol loo diraya isla biri waa la soo dejinaya isagana hadduu ku biiri lahaa wuxuu sheegay in walaashiis ay Germany jirto isaga hadduu Germany tagi lahaa macnaha in shabaab uu ka soo bax Germany loo wado isaga iyo walaashiis baxarka wada gal lahaayeen labadoodaba waa lagala noqon lahaa dhalashada Soomaaliya loo soo celin lahaa haddii kow walaashiisna baxarkaas galin lahaa isagana baxarkaas isgaliyay oo lugiiso shabaab ku doontay shabaabka ayuu wuxuu u maleeyay wax dibadda lagu aadi karo ma aha shabaab wax dibadda lagu aadi karo ee waa dhibaato kale oo lugiiso uu ku raadsaday waay nin shabaab ka tirsanaa hadda Yurub hadii lagu ogyahay waa la soo qaban karaa Interpol loo diraya booliiska caalamiga ah Yurub ma qaabilayso nin mar argixis soo maray horta laakiin nin askari ahaa ama dawladda ka tirsan caadi waa wutay kara seef waa qofkaas laakiin dhagar qabahani waxa sheeka waay TikTok ayuu ka raacay kooxda argixisada al-shabaab like iyo follow-da uu sameeyay dartiis ayaga soo wacdeen waa tashkiileen marka hore isla markii oo macnaha follow back la soo yiri ninka looma yeeran ayaan ayaa casharo lagu waday tashkiilis lagu waday marba dhinac laga gelinayo markii la yiri wuu qaatay geerka ayaa la yiri soo baxad markaas uu soo baxay tababarkii oo qaatay waxay rabeen inay marka magaalada Muqdisho dhibaato weyn uu ka geystay eedeysana bacdama uu reer Muqdisho sidaas awgeed ayaa waxaa la baray habka magaalada Muqdisho looga shaqeyn lahaa bambatuur haday ahaato madax jibis haday ahaato wax alla wixii dhagara magaalada Muqdisho ayaa la baray eedeysana inuu geysto u fiirso wuxuu yiri hadda in waa ka soo cararay waa ka soo dhuuntay hadduu soo dhuuntay number 1 markii lagu qabtay controlka Baydhabo wuxuu sheegan lahaa inuu soo fakaday shabaaba ah waa ka soo tagnimay oo dhila laakiin Muuse dhin wuxuu yiri dukaana ka shaqeynayo yiri hadalkiisa isdhaafay $150 ayaan dukaan ugu shaqeynayo yiri meeqa joogtay markii liina 3 maalmood uu yiri jaa waa fahmeen bay ciidankii saasa lagu qabtay eedeysana marka taas waxay cadeynaysaa inuu shabaabka ka soo bixin oo waxa aan ka sheegay ay runtahay shabaabka caadi ayaga shaqo u soo dirsadeen tababarkii oo soo dhameystay amnigaan loo soo bedelay inuu madax jibis noqdaan loo soo bedelay eedeysana way cadahay taas qiraal waaye TikTok-giisa lahaaya uu ka raacay shabaabka marka eedeysanahani waxa hadda uu sheegayo dibadda u socday iyo Yurub u socday waxba kama jiray shabaabka wuxuu ka raacay TikTok-gaas ayuu ka raacay ayuu ku soo aaday waa tashkiiliyeen waa barnaamijyo tababaraysiin magaalada Muqdisho aan hadda loo waday dhagartiisana waxa ka hortagay laamaha amniga ee magaalada Baydhabo joogo sidaas aan lagu soo qabtay mudan gudoomiye eedeysanaha afraad halkaas ugu gudbo aadan iyo xasan waa isku tababaray ahaayeen jabhaday ka soo qayb galeen dagaalay ka soo qayb galeen waxay kaloo ka mid noqdeen markii dambe ugu dambeysay loo bedelay dadka dhibaateeya meelaha shabaabka ay xoog ku haystaan awalba ayagoo meeshaas xoog ku haystay oo beerta ay shabaabka ka falan karin shacabka meeshaas ku nool waa dad iska dhibaateysan beerahooda ma falan karaan gabdhahooda gabadha ugu qurxoon waxa leeyahay ukhti nafta ku jeclaataa leeyahay xoog la isaga wadanaya bila meher la isaga wadanaya waliba ayagoo dhibaatadaas awal ku hayay ayaa labadan eedeysan waxay kamid ahaayeen koox dadkaas dhibaateynaysa dadkaas dhibaatada geysanayo oo ukhti nafta ku jeclaata la leeyahay oo badarka meesha wixii masjid xoog looga qaadanayo oo xoolihii xoog looga qaadanayo dadkii tiimkaas ka tirsanayeen labada eedeysanay ul iyo garaacis isugu darayeen hadda waxay sheegeen in qoriin loo dhiibay meeshaas ay ka howlgalayeen jubbada dhexe dadkii dhibaateynayo waa magaaladan Baydhabo loo soo bedelay inay dhagar ka fuliyaan ayaa lagu soo bedelay laamaha amniga ayaa ka hortagay
iyagana yaa soo qabtay rag ay isku tim ahaan jireen laakiin dowladdu isku soo dhiibay ee gartay nimankaas inay dhagar qabayaal yihiin ee gartay inay shacabkoodu u adeegaan ayaa soo qabtay labadaa eedeysane labadaa eedeysana hadda halkaas ugu gudbo eedeysanaha ugu daran marka shabakadda waa kana waa aadan xuseen muumin aadan hoomey mudane guddoomiyey shabaab uu ka tirsanaa muddo dheer ka hor ku biiray wuxuu ku biiray 2013 uu shabaab ku biiray 2013 markii shabaabku uu ku biiray eedeysanaha wuxuu ka soo shaqeynayay jabhadoo soo maray kooxdan kale oo loo yaqaan xisbadoo soo maray hadda maxkamaddu ka hor sheegay inuu xisbo ahaa dhowr sano uu xisbo ka shaqeynayay kadib wuxuu isku soo dhiibay laamaha amniga mar haddaad isku soo dhiibtid waa lagu aaminayaa waxaa lagu samaynayaa dhaqan celin eedeysanaha waxaa loo sameeyey dhaqan celintaas la sameynaayo meel laisaga jiro xira ciidana maaha qarashaa ku baxaayo tababaraa ku baxaayo macallimiina loo geenayaa fikirkii lagu shubayaa laga gedinayaa inuu shacabkii soomaaliyeed uu ka mid noqdo ayaa la barayaa xirfadaa lagu baraya shabaabka xirfad kuma barayaan shabaabka waxay ku barayaan sida dad loo dilo sida dad loo qarxiyo dhibaato keliya ku baraya shabaabka sida dhiig islaam loo daadiyo ayay shabaabku barayaan laakiin dowladdii waxay bartay eedeysanahani xirfad haddoo rabo korontiisto inuu noqdo korontiistay barayaan harqaalle inuu noqdo doorbi harqaalle barayaan baawurre inuu noqdo doorbi daroolnimay barayaan nooc walbo xirfadaha la baraya waa yaa la baraya dadkii shabaabka ka yimid ee si iskooda isku soo dhiibi waaya dadka la barayo intaas markii tababarka aad dhammaysatid waxbarashada aad dhammaysatid takhasus lagu siiyo haddana lacaga lagu siinaya lacagtaas waxaa la rabaa marka wixii lagu baray inaad uga shaqayso eedeysanahani markii lacagta la siiyey kadib trisboroba ka dhigtaba shabaabkii ku laabtay adigoo mar yiri waa isa soo dhiibay wixii waa iska soo baabi'iyey haddana jawdi lagu geliyey lacag lagu siiyey in haddana ku laabato argixisada waxay caddaynaysaa in marka horeba aad qorshaada ahaa in aad ka nabad gasho laamaha amniga inaad ka nabad gasho oo dhibaato aad dhulkooda kusii samayso oo shacabka soomaalida aad dhibaatayso ayaa caddayn u tahay haddaba mudane guddoomiye bacdamaa eedeysanayaashani ay ku caddahay kiisaska ay galeen argixisnimada ay ka mid yihiin caadaysteen weliba ayagana dhan ay soo dhiibin eedeysanahaas ugu daran yahay inuu is soo dhiibo haddana ku laabtay argixisada waxaa maxkamadda sharafta laga codsanayaa waxaan waafaqsanahay qodobada aan ku soo eedeeyey oo ah qodobka 6aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad iyo qodobka 18aad ee xeerka la dagaalanka argixisada waxaan waafaqsanahay xeerka la dagaalanka argixisada ee eedeysanayaasha inay jabiyeen wayna ku caddahay waana caadaystayaal u bareeray inay ku biiraan argixisadaan daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed waxaa maxkamadda sharafta laga codsanayaa in ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobada aan ku soo eedeynay ay dhigayaan maxkamadda sharafta waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in muwakkiliintiisa loo sameeyo dhaqan celin lana siiyo xorriyaddooda may abukaatan ahaa dadka inta fadhiyey oo la haysada siduu isu qabo qodobka 15 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaan dadka inta wada fadhiyey dhowr eedaa ka shal hadaleen Elias markii aanu ku bilaaw Elias isu sheegay laakiin walkala in liinka darmeed lama bambi tuuriyari ani walka dhamaadayna ma sheegna iyo Ibrahim saasoo kale lanka mucaadla raw wal dambe oo usulay oo la kacday ma jirto shahaadana malan haayo ma shahaada liinka weelay lan marxaata ban galaan shuruudu shahaada markii la tiriyo may la reey ala adala lan aadil iyo marxaata gale lan usub shabaab ahay la dhiigdeediyay marxaata ma galaw aadil ba ma rumba ma sheegaw maadaama dhiig dad bareen marxaata ma sheegaw nimanka kale mubaarak abuukar umar salaad sheegi inay shabaab kabiiri laakiin sida heer ilaalinta indhigdi ma lan hanaaka saadiw Soomaali ma raasay dhalinyaro intii teeg boodiya talana boodas mahayna lan TikTok iyo luku hoolgili mahayna haddana inay qaldinyi hoob ogaadi isubaha ku nagadi mid kale aadan iyo aadan xasan macallin xasan maxamed saak maxkamadda fiiridoy hadda hob miir shay halin waa tan shabaab ha ku tabi anta kooy hob la dhagan eli adduun shay isku qabsidii hay baabura waday homeelinka magadari shabaab homeemile rakaab magaado lan kastiye in shaqaysada awlaadis in hamaaladahay waxyaabaha la bariya kuma tahay dhagan elinti la kabari in lanka kastiye in shaqaysada marka kastiye in shaqaysaday
marka qiraalka qodobka 68 heerka habka ciqaab walaalan ka sheegaya la qoro wal an sheegna malan qoro sida mucaad oo kale dhalinyarada birshe oo kale wal an sheegna leen qoro haddana qoraalka saxga ee maxkamadda hortiye kan la kabiyo ama wali meel kale ee walba managada marka may kale qaade qarash la'aanta qodobka 119 qarash la'aanta dadku walba aan garan maxkamadda aan qoronto natiijada qarashada dadka qaradi qodobka 108 taas maxkamadda aan taalla intii walba garatay laakiin intaan garan taasu maadaama qodobka 119 una maro hayn maxkamadda sharafta leemay ku odsaday dadka dambilaanta tumu illa masanu ku hor wal gali sabinimo la kasi ka gali أني محكمة كهلا قضب بقول لباتن اللبو دم بكوايته أني دم بأن الله إن حريديو دبلينسي سدو كله نمنكر هم تشيجي أما هول بعيدن كلا قبضي أنلين فيري قضب كأفرتنات هيرك إقامة الصوماليات الدروفها آديجا فضودية دمبيج أن دمبيج أرجع لكم فضودي دوجين أنت هك جب يسده وبالله توفيق garmaqalkan oo ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa gabagabada waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka Baydhabo